odaya waxa uu yimid yaran kaasuu awoow sidee ku noolaanteen adduunkii hore TV la'aan internet la'aan wuxuu yiri sida adduunka hadda aad nooshiin salaad la'aan wuxuu yiri sida aad hadda adduunka nooshiin salaad la'aan iyo akhlaaq la'aan بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا جوا سعيد البار لما مع سلام يا أمة المسلمين تا أما جارهان أمة الصوماليين جوان بحم سلام يا سلام تسلم كالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام أما السلام كبعدي واحد ربع حاجة كلمتين عن برنامج كاس ونهانتي أنقوم عبري دعوين كدنيا برنامج كاس وأنقوم عبري دعوين كدنيا أنا جو عن دليرة وحن للسعودي الدون ك سجود يسجارة بالسعودي مركهم حياة بدن ميل بدن تجي وحياة بدن الكي waxaa jira dunida guud keeda aan ku soo arkay run ahaantii dunida way weyn tahay balse guudkeeda waxyaabo badan baa ku arkaysaa dhacdooyin badan waxaa ku arkaysaa dhacdooyin badan qaarkood xitaa aysan ahayn suurtagal ahayn ama marka lagu sheego aad isdhahaysid waxaan suurtagal ma aha waxaan rabaa inaan information ama macluumaad ama xog ku saabsan waxyaabahaas aan galabta xagga ku bixiyo dadka dunida ku noolna ay gala qayb qaataan laakiin waxaad isdhihi karnaan ama aad malayn karnaan waxyaabaha aan xagga ku soo gudbinay inaysan ahayn wax suurtagal ah balse anigu suurtagal ka dhigi mayo adinku markii aad aragtaan ama aad la kulantaan ama horey aad ula soo kulanteen bal ogaanaysaan xaqiiqada waxaan aragnay adduunkaan maanta aan joogno ama sanadkan hadda sii gabagabada ah 2022ka dhacdooyin badan dhacdooyin xitaa waxaa jira falal waagii hore laga xishoon jiray balse hadda noqday caado run ahaantii wax qarniyo hore oo tagay ama dadkiina dhalay annaga ama awoowayaasheen ama ayeeyaasheen duni waxay ku noolaayeen dunida ka duwan waxaa jiri jiray nin odaya waxa uu yimid yaran kaasuu yiri awoow sidee ku noolaanteen adduunkii hore TV la'aan internet la'aan wuxuu yiri sida adduunka hadda aad nooshiin salaad la'aan wuxuu yiri sida aad hadda adduunka nooshiin salaad la'aan iyo akhlaaq la'aan ruuxaantii waxay ku turjumaysaa taasna waa dhacdadaas oo ah dadkii maanta dhalinyarada iyada ama jiilka iyaga hadda jooga 2000 ilaa wixii ka dambeeyay jooga duni casriya waa la tanqaaday duni waxyaalo badan yaalaan waa la tanqaaday duni waxa weeye ilays ama nuur ka baxaya waa la tanqaaday balse dadkii hore taariikhdooda haddii aan fiirno waxa ay ku noolaayeen dunida maanta aan joogno duni ka duwan bay ku noolaayeen waxaan isdhihi karnaa waa horumar la gaaray ama teknolojiyad cusub la gaaray dhacdooyinka dunida ka dhaca qawaaniinta dunida aniga waxa ay bareen dadku inay wax wada arkaan balse isku soo aysan wuxuu arkay dunida ayaa qawaaniinta dunida badan waxa weeye haddii aan isku dul istaago waxyaabaha badan ama dhacdooyinka badan oo aan kulmay horta marka ugu horeysa dadkayga gabdhahayaga waxa weeye qarniyo ka hor joogi jiray dunidan quruxda badan waxa ay ku noolaayeen sharaf bay ku noolaayeen sumcad bay ku noolaayeen akhlaaq bay ku noolaayeen waxa ay ahaayeen gabdho xishooda gabdho waxay ahaayeen asturan balse maanta gabdhaha jooga marka ay xaggan ay ku nool yihiin akhlaaq la'aan salaad la'aan xijaab la'aan asturnaan la'aan ay ku nool yihiin run ahaantii ma ahan inaan anigu caayo gabdhaha Soomaaliyeed balse waa dunida cusub oo hadda aan la tanqaadnay dhallinyaradeennan Soomaaliyeed waxaan wadigayaa in aan noqono kuwa akhlaaq leh salaada tukada ilaahay ka cabsada aan noqono mar walbana ilaahay ku xiran mar walbana waxa weeye
cabsiga badiya sidoo kale dunida aas anaga oo ku nool waxaa jira dhalinyaro hadda sanadahan soo baxayay oo waxa weeye digri ama master inta soo qaata dalkooda way ku soo laabanaya oo shaqo la'aan ka cabanaya wareerka iska jiro waxyaalo badan iska jira xagga uu jiro dad aan waxba baran ama aan waxba qori aqoon ay yihiin dad hodana marka qodobka labaad aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye sideen uga dhaadhicin karnaa jiilka cusub inay tahay waxbarashadu iftiinka nolosha sidee uga dhaadhicin karnaa jiilka cusub in waxbarashadu tahay furaha nolosha haddii ay nagu hareeraysan yihiin dad jaamacad ka soo baxay balse sabool ah aan waxba haysan balse jaamacada ka soo baxay iyo dad aan waxba baran oo qaniya ahaantii taas waa arrin cajiiba waa arrin mucjiso ah waa arrin qaarkiin laga yaaba inaysa waxa weeye wax su'aalo badan iska weydiiyaan dunidan anugu ku wareeray halka aan ogaaday waxyaabo badan dhacdooyin badan waqtiyo badan meelo kala duwan kusoo bixiyey dunidan khayrkeeda ilaahay hana siiyo ilaahay hana waafajiyo ilaahay waxa weye wax khayr qaba hanagala kula siiyo ahaantii galabtay ummad Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa kaliibka galabta duruubayo ama dhiirigelinta ah in ay gaarsiiyaan meel walba oo qof dhalinyaro ama qof dhalinyaro Soomaaliya joogo in ay gaarsiiyaan siina shargarayaan beejkiisa Saciid Cali Baar nala socon ka dhaan wixii ikhtibaarada waxaan soo gabagabeynayaa su'aasha ah dunidii hore iyo dunida farqiga u dhaxeeya muxuu yahay su'aashaas su'aal dhextaal bulshada Soomaaliyeed dhextaal la weeyay iga soo jawaabna iga soo bixiya intaas oo soo koobiya hadalkayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh